حتى هبلو waxaa jiray igu oran jiray macnaha wax barashada marka adiga ku aragnay waan jeclaanay macnaha mulaxalayay mise uu ku ciyaaray gaadhigo kale qaar bay igu yiraahdaa kulay toolay qofku qalbiga naafa kama aha maanta kolba marka magaceeda la soo hadal qaadaba ilma ay geeyminis marka sababtu waxa weeyaan yaasmo waxyaabaha ku xasuusto waxa kamid ah kalaaska markay fadhido ardayda way isleegaayeen oo fadhigeeda waa adiga arkaya laakiin marka la baxayo uumba yaasmin halkii dadku kor uga kacayaan iyadoo hoos ma u dhaadhacis ka bacdina gurguurasho ay kalaas ka baxays isla xaaladaas oo kale aad baan u murugan jiray hal adayg ay qabto mar walba xidhan jirtay macallin mar kasta anigu waan korayaa waana fuulayaa halkaas anaana gaadhiyay oran jirtay abwaan xasan xaaji cabdilaahi xasan ganay ayaa laga guntay heestii ahayd moogtahay curyaankaba cagalooma waayinay caynka wax loo yiri kuwa cararaya ladana ku cibra qaataan sidoo kale Ismaaciil Jeey waa kii hees ku lahaa laxad caafimaad qaba curyaan hitiya garan eriyadaas oo dhan waxa ay ka turjumayaan marka aad eegto naafannimadu inay tahay waxyaabo loo baahan yahay inay bulshadu ku cibra qaadato dhanka kale naafannimadu ma aha inaad cagabeesho ama dagaalaaday laakiinse waxa weeyi marka aad qalbiga iyo qulubta walaaday taas ayaa la yiraahdaa naafannimo daawadayaal waxaan idin la wadaagaynaa sheeko ka hadlaysa gabadh naafa laakiin dadaashay oo hami iyo himilo ay lahayd kamida dhalisay iyadoo muddo dheer kadib ka qalin jabisay halkii ay himilada iyo hadafkaba ka lahayd ee daawadayaal ku soo dhawaada warbixintaas oo dhameystiran Yaasmin Ibrahim Ali waa gabadh dhalinyaro oo ku nool magaalada Hargeysa isla markaana laxaadkeedu kala dhiman yahay naafannimadu kamay dhigin inay ka quusato rajada weyn ee ay ka leedahay nolosha iyo inay asaageed ka hadho laakiinse waxa ay kamida dhalisay qayb kamida hadafkii ay ka lahayd nolosha Yaasmin muddo ku siman 12 bilood ayay ahayd ardayad wax ka barata kulliyadda luqadaha iyo kombiyuutarada ee Iqra College telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa u kurgalay qaabka ay Yaasmin wax ugu soo barato dugsiga Iqra maalintani waxa ay ku jirtaa maalintii ugu dambeysay ee Iqra wax ka dhiganayso waxa ay ka soo baxday gurigooda si ay u tagto Iqra College waxa ay soo qaaday wado weyn oo highway iyadoo wadata gaariga loogu talagalay dadka lugaha naafada ka waxa ay soo fuushay jaranjar dheer si ay u gaadho hadafka iyo himilada ay leedahay Yaasmin maalintii shalay ahayd ayay ka qalin jabisay kulliyadda Iqra College iyadoo si ballaaran ay maamulka iyo macallimiintuna u sharfeen isla markaana ay u sagootiyeen Yaasmin iyagoo sheegay inay ahayd gabadh hadaf iyo himilo weyn kale nolosha iyo inay noqoto qof maalin uu kamida bulshada kuweeda haldoorka madax iyo mas'uuliyiin kala duwan ayaa iyaguna si gooniyo uga maamusay ardaydii kula sugnaa goobta iyagoo hambalyeeyay dadaalkeeda iyo nafurnimada ay muujisay muddadii ay wax dhiganaysay waxaa loo sameeyay maamuus ballaaran iyadoo shahaado sharafyo iyo abaalmarino kalaba lagu maamusay intaas kadib waxa aanu Yaasmin Ibrahim Ali ka waraysanay waayaheedii nolosha iyo qaabkii ay wax ku soo baratay waxay nooga sheekaysay waqtigii ay wax baranaysay iyo waxyaabihii ay la kulantay waana tan iyadoo fariintaasi diraysa والله أرتاد يا أبان وقفر أحسن هاي ما أنت هنا نقارو همي همي كمذا محل هذا أدي أبان وقفر أحسن هاي وحنا هل كان وقوم هالنقاء مركور إلهي سبحانه وتعالى يهرقلي مركل بعد حن وقوم هالنقاء كل والد كي أو هو يدي معن مركز اتحاد وحا إسكالة معمول كي جاي معلمين تي إقرا كولج ورنتي نصفي عن إلى صور رقمي هذا أتهاي اعترام يا هذا أتهاي معنا waxay tixgelin aad iyo aad u mudan macallimiinta aad iyo aad baan u salaamaya waxa leeyahay mar labaad iyo mar koowaad iyo mar saddexaadba maamulka Iqra College iyo macallimiintoodaba maxaa la yiraahdaa idinka mudan maanta heerka inaan taagnaado bal ka war caqabadii ku soo gudboonaaday muddada wax baranaysa والله هرتو محل هذا هرتو كله أنا جو واحد كستا واحد سلي أسكتيدي أو معناها إن واحد كستا واحد سلا معناها أسكتي هذا حتى جرن شر داري قصو كيسو واحد سلا هذا معناها إن قراءة نفتي ذا معناها كودي رجلية ياس مركها معناها محل هذا جرن شر أو كلامه يعني لكن أنت كله هذا أرضي ذا تهاي وما أنت هالكلام كان كود قلنا تبينه له congratulation
maxaa la yiraahdaa aad iyo aad bay ii soo dhaweeyaan marka runtii inta micnaha jaranjarada oo kaliya too fooqa aan korayo amba jaranjarooyinka kale marka inta mooyaan caqabad kale sida kale wallahi boqolkiiba aad baan ugu faraxsanahay bal ka waran midinta la wax soo dhigaysay sanad iyo sanad marka maxaad baratay computer computerka iyo english ma sha Allah bal ka waran ardaydii aad la dhiganaysay bal ka waran sidee kula muuqdeen dadaalkaaga والله أرتي دورت آد بقدرينين بست فريم بدن لو كل هاي معناها إن محل هذا يي مركا رنتي إني إدري قلي أنا يقول حتى هبلو واحد شري يقول إن شري معناه واحد برشة مركا عادي كو أرجني وان شعلاني أيات شراء أو بدن أو محل أقرأ كله كان وضع ديجنا أو محل إدري قلي مركا قف إدري قلي مو يعني والله قف كلام أركين حتى الطريقة أنا وصل سعودة تسكو إدري قلي واحد يقول ولا لو واحد برنسا هو رؤسه شال الددل كواد halkan waxaan aad uga mahadcelinayaa walaashay hooda Axmed Cali oo marnaba ilaabi karin dadaalkayga qayb weyn ka qaadatay micnaha aan oran karo kulli tolo waa mishiinka koowaad oo maanta halkan ku joogo ma sha Allah kulli wada soo marisay gaari yaro kii loogu talagalay afadan wadatay bal ka waran dhanka wadada iyo gaadiidka iyo caqabadaad kala kulmaysa والله horta waxa jirta marar badan oo jaamo kale la galayo oo waxa jirta inta badan horta dadku wallahi horta way ictiraabaan oo waxa jirta inamada amba qofka gaari wato kale inuu gura wala soco oo aniga iga joojiyo dadka qaar waxa jira micnaa kula yaawayo ku eegaya oo kula yaawayo ka oranaya yaa micnaa waa maxay qofkani miyu micnaa mulxalayay mise uu ku ciyaaray gaariga kale qaar bay igu yiraahdaa marka runta hadana bulshadeena Soomaalidu aad bay xarfinayeen oo fiican yihiin roobka oo kale micnaa mararka roobka oo kale waxa igu keentaa inaan college-ka aadi karin maadaama gaariga dul furan yahay oo ma aragtay hadana uu waayir iyo wax leeyahay oo ma aragtay aduu roobku oo kale waxa laga yaabaa inuu iska kay baqtiyaba marmarka qaar oo maxaa la yiraahdaa taas oo kale caqabad igu keento maalmaha markuu roobku daayo kale inaan jaraba laga yaabaa meesha aan tagayo amba college-ka kale marar badan aan jiray caqabadaha roobka dartood amba micnaha laago kale haday meesha marsadaad badan inaanu iga talaabi karin marka kulli caqabadaha ugu waaweyn waa intaas laakiin wax kale waxa jira dad saadan oo kale ah oo aan ku hamineen xitaa inay wax bartaan caqabada ugu weyn ee ka cabanayaan ay tahay inaanay waxbarashada gaari karin bal farinta u dirta maxay wallahi horta waxaan u diraa kulli toole qofku qalbiga naafa kama aha micnaha hadii aad cagaha bal micnaha amba gacmaha amba dhiga amba indha naafa ka tahay micnaheedu waxa weeye qalbigu ku noolyahay maadaama qalbigu ku noolyahay qalbigaaga wax ku baro qalbigaaga ku dadaal micnaha qalbigaaga hore ugu soco ku meel marban oran lahaa waa tahay dadaal baad ka mid dhalisay maanta waad milihiisii maanta joogtaa kulleeyda waxa jira cid kula soo dadaashay iyo halkan ugu mahadnaqaysaa oo aad leedahay halkan way ku soo gaarsiiyeen ilaahay ka soo horta wallahi kulay waxaan uga mahadnaqayaa walaalkay Aamina Cabdiqani Axmed Cali iyo walaashay Suleekha oo kulay toolay dadaalkayga qayb weyn ka ahaa iyo family-gayga dhamaantood oo micnaha hada goobta xitaa igu la sugan walo aanay hooyaday macaan maanta micnaha igu la sugna goobta oo ay micnaha ay joogto miyiga oo kale to hooyaday miyi degan tahay marka kulay iyo dhammaan Iqra College أنا هذي معمول كتير هذي معلمين تتي هذي هذا أحمد علي تي هذي معلم كيجي معنا كو يقبل أبي وأكتاجن أيتاي يعني إبراهيم آدي بن والسلام يا دمانتود وحنلاقي هاي مانتا كل يوين وذقول السنة فرحتي دنا يجا آد وقيب قاطع aad baad mahadsantahay walaal Yaasmiin oo ku mahad celinayna congratulations maqlaan haye walaal Sahayb adigana aad baa mahadsantahay Sahayb laftirkiisa oo ila halgamiyay in badan aad baa walaalkii Sahayb mahadsantahay Allah ku sharfaa ku karaameeyo baan ku leeyahay dhanka kale mid kamid ah macallimiintii wax soo baray iyo sidoo kale mid kamid ah maamulka iskuulka ayaa iyaguna ka marakacay dadaalkii nafurka ahaa ee ay muujisay Yaasmiin iyagoo sheegay inay tahay shakhsi ku dayasho mudan waxayna sheegeen inaanay maalin qura ka habsaamin kuliyadan ay wax ka dhiganaysay aad baan horta ugu faraxsanahay marna waan ilmeynay maanta dhan waxaan u ilmeynay weeyaan Yaasmiin oo ahaa macalinkeedii koobaad oo u bilaabay iyo duruufiha ay ku waday awgeed markaan arko maanta kolba marka magaceeda la soo hadal qaadaba ilma ay geeyminaysi marka sababtu waxa weeyaan Yaasmiin waxyaabaan ku xasuusto waxa kamid ah kalaaska markay fadhido ardayda way isleegaayeen
oo fadhigeeda waa adiga arkaya laakiin marka la baxayo uun bay yaasmiin halkii dadku kor uga kacayaan iyadu hoos ma u dhaadhacis ka bacdina gurguurasha ay kalaas ka baxays isla xaaladaas oo kale aad baan u murugan jiray markasta waxaan ku oran jiray waan u dhiirin gelin jiray waxaan ku oran jiray yaasmiin waad insha Allah maalin bad guuleysanaysaa horumar bad gaadhaysaa waxyaabaha kana xasuusto waxa kamid ah Suhaybow annagu fooqyaan had iyo jeer aale ku dhignaa wax fooqa markii hoos joogto ee ardayda si degdeg ah ay ku fuulaan iyadu waxay noqonaysaa ma halkii hoosaad ugu dhigi ma karaas baad ugu dhigi dabeetna hal adayg ay qabto mar walba xidhan jirtay macallin mar kasta anigu waan korayaa waana fuulayaa halkaas anaana gaadhay bay oran jirtay marka waxyaabahaas aad baan ugu hambalyeynaa maanta yaasmiin ka waran dadaalkeedii waxbarashada iyo qaabkii ay ugu bixinaysay dadaalaysay iyo maadaama ay kuliyadda ka mid tahay meelaha ugu ataniska adag bal ka waran qaabkii dadaalkeeda yaasmiin haddii aan eego xagga dadaalkeeda iyo iimaanteeda waxay ka mid tahay dadka koobaad baanji walbay mar kasta ahayd maalinta ay roobdo wayna soo hadli jirtay macallin maanta roob baa da'ay ee sida ugu laakiin joogtiinta iyo ka qayb qaadashada kalaaska ka annaba ardayda kale oo dhan bay kala mid nahay oo hadduu cid noo soo gasho kalaaska iyadoo fadhida ardayda kalun bay la mid ahay same beehid keliyata laxaadka kala dhimanay leedahay mooyaan marka waxaan u diray fariin qof kastoo laxaad dhimayna waad baran kartaa doonaa wuu helaa ma doonana ma helo ma soo qiyaasi karo ma soo koobi karo yaasmiin waxaan xasuustaa maalinkii koobaad ee timi meel fooq baan ku jirnaa aan dadka ku qornaa aniga xagga hoose ay tii xagga hoose joogta way qolo dhalinyaro yimaadeen ay gudhahdeen in baa naafaaba ku doonayso xagga hoose anoo shaqo jaama ku jiro oo xilliga bishu ay dhamaatay ardayda la qoro ee fiyada laga qaado waan soo daadiga waan u imi halkii baan warbixintii weydiiyay halka looga bilaabayo waan soo qoray sidii maartay iskuulka ay ku dhiganaysay waxa ilaahay mahadiya yaasmiin tani maalinkii iskuulka la bilaabay waxayna firi ku dhiganaysay si wanaagsan yaasmiin kaliya qofka banaadamka ay meesha laga curiyo ma walaal loo maskax wax weeyaan inaanay curyaanahay ma anagu sheegaya qof aad u firfircoon oo qof akhlaaq ahaan iyo dhaqan ahaan qof aad u dhaqan wanaagsan qof aad u akhlaaq wanaagsan dhaqan wanaagsan tarbiyad wanaagsan ardayda qof aan jeclayn iyo macallimiinta aan jeclayn ma jiro marka ilaahay marka koobaad waxaan uga baryaa ilaahay laxadkeeda soo celiyo ilaahay waa wada ilaahay laxadkeeda soo celiyo yaasmiin way soo dadaashay meel fiican bay soo gaadhay inay halka ka sii wadaan rajeynaya insha Allah